maxamed cabdi xamu oo dhawaan madaxweynaha deegaanka Soomaalidu u magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Afdheer wareysi gaar ah magaalada Jijjiga ku siinaya telefishinka Home Cable ayaa wax ka weydiiyay bal sida uu arko xilka uu dhawaan madaxweynuhu u magacaabay xilka waxa ii idmaday xisbiga iyo xukuumadda sida xubnaha kale xilka loogu idmado ayaa la ii idmaday aniguna waan aqbalay sababta ugu idmadeen waxay ahayd inaan meeshaas gobolkaas dib u dhacsan inaan wax ka qaban karo amnigiisa aan sugi karo xisbiga aan maartay magaciisa iyo sharaftiisa iyo karaamada uu gobolku lahaa aan kor u soo qaadi karo gobolka xuduud ballaaran buu leeyahay oo ilaa iyo mustaxiil ilaa iyo dorow oo cadow uu fadhiyo marka waxaas oo dhan ninkii maanta maartay hawsha qaban lahaa inaan aniga ahay bay maartay ii idmadeen xisbigan barwaaqana maartay dhisi lahaa soo saari lahaa salka u dhigi lahaa khilaafaadka jira baabiin lahaa waayo aragnimadeeda leh aqoonteeda leh khibraddeeda leh way ku maadsan yihiin anigana waxaan ka codsanayaa maartay inay gacan siiyaan ilaahayna inuu garansiiyo cadaaladna aan ku shaqeeyo taariikh fiicanna meesha aan kaga tago xisbigu wuxuu igu talagalay baan qabanaya shaqadu igu talagalay hadduu degmo ii idmado hadduu qabale ii idmado hadduu kil ii idmado hadduu madaxweyne ii idmado diyaar baan inaan ummaddeeda u shaqeeyo xamu ayaa wareysigan waxa uu ku sheegay inuu gobolka Afdheer ka mid yahay gobolada deegaanka ugu dibdhacsan balse laakiin isbedel xoog ah uu ku sameyn doono dhanka horumarka iyo arrimaha bulshada waxyaabaha ugu muhiimsan ee miiska ii saaran waxaa ka mid ah inaan cadaalad ka shaqeeyo dadka u cadaalad sameeyo xisbiga barwaaqo aan adkeeyo aan dhiso aan xoojiyo xisbiga aan u diyaar gareeyo ilaa heer doorashada maartay qaabka uu guuleysan lahaa dadka dhibaataysan inaan wax ka qabto laamigii wadada laamiga nin baa qandaraaskeeda qaatay ninkaas siduu u bilaabi lahaa si dhaqso ah ilaa hargeysa lagu gaarsiin lahaa ilaa laamiga jarrata ugu daraa inaan ka shaqeeyo laydhkii iyo maxaan ku dhahay biyihii laydhkii oo jirin sida maartay aan u furi lahaa madaxweynuhuna dee uu gacan iiga siin lahaa marka horumarka aan u xoojin lahaa marka waxyaabaha ii qorshaysan qodobadaas ka mid ah cabdiraxmaan buux telefishinka Home Cable xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Jijjiga magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u labisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha